أبي سعيد الخدري الله كرال نقضي ayaa wuxuu yiri rasuulka wuxuu yiri mar uu ka sheekeynaaye boqor reer bani Israa'iil waxa jiro dad boqor reer bani Israa'iil ah oo muslim ah boqorkaas uu israaf badnaa cunooyinka tuu cuno daadin jiray marka waxa jira lahay qashin qubkiisa wax ka cuni jiray nin caabid ahaa oo dhalinyaro ah ee waxba aan haysan maalin kasta wuxuu imaan jiray qashin qubka meeshuu ku soo daaday meeshaas uu sameyn jiray wuxuu cuni karo haduu wax waayana la foofeelin jiray ninkii waxa la dhahaa boqorka ahaa uu dhintay wuxuuna galay naarta marar badan waxa laga yaabaa qofka muslimka ah in uu dambiyadiisa u naarta ka galo ilaahay baa ka magalnay naarta wiilka dhalinyarada meeshuu ka tagay maadaama wax la soo daadinay ay qashinaysan jirin wuxuu aaday duurkaas wuxuu iska soo cuni jiray marihiisa iyo biyo meelahaas ku cabi jiray marka biyahaas uu ka cabo waxa la dhahaa ninka caabidkan uu dhintay ninka caabidkan ma ku dhintay ilaahay wuxuu yiri maanta ma jira qof wanaag ku sameeyay ee aan abaal mariyo ma jira wiilku wuxuu yiri maya ilaahay ma jiro markaas alla xagee ka heli jirtaa lahay macaashtaada waxa cuntay ka heli ilaahay wuu ogyahay moogtaa markaas wuxuu leeyahay ilaahayo waxaan aadi jiray qashin qubka nin boqor ahaa hadaan wax ka helo meeshaas aan ka cuni hadaan ka waayana wixii meeshaas aan ka hela baa cuni jiray markaas wuxuu ku yiri ma garanaysaa waa ninki haa buu yiri waan garanayaa ilaahay wuxuu amray markii in naarta laga saaro ninki naarta laga saaro asagoo u eg dhuxul markaas dhuxush markay wuxuu yiri ninka qabo gacantiisa qabaa Allah oo jannada geey hadii uu ogaan lahaa in aad ka cunto qashinkiisa waa lagu cadaabi lahaa leeyahay maadaama uusan ogeyn wanaagaas iyo meeshas macaayishta ka darteed buu jannada ku galayaa waa ma santihiin waa walaashi miska Cabdi Nuur jazaakumullahu khayran lamatiin barakallahu fiikum